wuxuu i weydiiyey su'aalo ciidda ka badan sida yaa kuu soo dhiibay bamka xaggee dhig lagu yidhi dadka kuu soo dhiibay ma qaraabaad ahaydeen haddii aydan qaraabo ahayn yaa markii hore iskiin baray dhaqaale intee la'eg baa lagu siiyey iyo kuwo kale oo fara badan wuxuu ahaa nin yaqaana shaqaduu qabanayo oo haddana shakhsiyaad suuban leh wuxuu igu yidhi waryaa dembi aan tuugannimo dhaafsiisnayn ma lihid maxaad dilka isugu xukumaysaa markaasaan ku idhi adeerow dembiga waan galay waxaad fali lahaydeen fala isagoon hadal dambe igu noqon buu waraaq qoray oo dawaan ka yeedhiyey askari ordaya baa yimid kolkaasuu waraaqdii u dhiibay afkana ka yidhi rugtii booliska ku cesha warqaddaanna taliyaha rugta u dhiiba wax yar kadib waxaan is arkay anoo xiradii booliska oo 15 cisho ka hor layga soo bixiyey xabsigeedii ku dhex jira xaqiiqdii iigama duwanayn anoo la i keenay gurigii cubtan gooni waraaqdii uu iga soo qoray kabtan faytaan waxay u qornayd sidaan ciilqabe waa wiil dhallinyaro ah da'diisu tahay 14 sano shaqadiisu waa tuugannimo takhasuskiisuna waa boorsada fid waxaa farihiisa iyo raadkiisa laga helay goobtii bombada laga helay 15 maalmood ka hor markii waraaqdan laga qoray goobtaasi oo ku taalla suuqa Ceelgaabta waxaa xafiiska dambi baarista si weyn isugu howlay in arrintaani ku saabsan shirqool ka qaran runteeda bannaanka la soo dhigo iyadoo la adeegsanayo hab kasta oo sharcigu bannaynayo iyo weliba hab kasta oo badbaadada qaranku bannaynayo ilaa ciilqabe la gaarsiiyey heer uu qirto in cadowgu soo adeegsadeen oo bombada u soo dhiibeen si uu u fuliyo howlgal qarbudaad ah kaasoo qaranka lid ku ah shaqada booliska waxaa ka mid ah in aan la aaminin qirashada eedaysanaha sabab badan dartooda waxaa suuragal ah inuu yahay qof naftiisa nacay oo inuu dhinto ama inuu xabsi dheer gala doonayo anigoo halkaasi ka duulaya waxaan ogaaday in ciilqabe yahay mid aan la isku hallayn karin qirashadiisa sidaas darteeda waxaan idinku soo celiyey ciilqabe nuur giirin si aad kiiskiisii hore ugu qaadaan markii aniga xabsiga la igu tuuray waraaqdiina waxaa loo dhiibay taliyaha rugta markuu waraaqdii akhriyey buu kaalintiisii weydiiyey sababta aan u xirnaa waxaana loo sheegay in tuugannimo la igu soo xiray intaan sargaalkii la ii geyn baa arrin la yaab le dhacday 2 gabdhood oo dhallinyaro ah baa iridda xabsiga soo istaagay waxaana isha ku dhuftay boorsadii bombada ku jirtay oo gabar garabkeedu suran yahay askari waardiye ahaa baan u yeedhay oo xaalka u sheegay isna madaxdu arrintii u gudbiyey muddo 1 daqiiqo ka yar baa aniga iyo 2 gabdhood ee midkood boorsada sidatay xafiiska taliyaha rugtana la geeyey dhamme gaaruf gabadhii buu intuu bac u dhiibay ka codsaday inay alaabteeda boorsada ku jirtaa ku shubato bacdaas si boorsada loo eego iyana halhaleel bay u fulisay codsigii intuu boorsadii ii dhiibay buu igu yidhi ma hubtaa in boorsadii bombada ku jirtay tan tahay saanehaa suuye see ku ogaatay markaan bombada ka soo saarayey baa meeshaan dhaawac ka soo gaaray su'aashii buu u wareejiyey dhankii gabadha boorsada lagu sababay xaggee boorsadaani ka keentay sayte maalintii dhoweed baa meel suuqa Ceelgaabta u dhow ka helay su'aashii kale buu weydiiyey maxaa ku jiray sayte teesara xun oo qof dumar uu leeyahay baa ku jiray teesarihii aaway buu ku tiraabay gurigayga dhexdiisa baan ku tuuray bay jawaabtii noqotay isagoon hadal dambe u noqon buu dawaan ka cuskaday gabadhii xafiiska ka shaqaynaysay baa timid wixii gabadhu tiri buu amray in teeb lagu soo qoro markii la keenay buu hortayada ka akhriyey oo yartiina weydiiyey in wax qoran yihiin wixii ay tiri kana saxiixay markay qiratay waxaa la isku daray 2 askari iyo gabadhii la tuhmayey baabuurna waa la siiyey gurigii oo dhan baa la soo baaray waxaana laga soo dhiftay aqoonsigii teesaraha waa Raxmo Liibaan oo wasaaradda arrimaha gudaha u shaqaynaysay iska leedahay aniga iyo 2 gabdhood baa baabuur nala saaray oo xafiiskii kabtan faytaanna la geeyey waxaan ka shallaayay inaan boorsada sheego haddaan ogaan lahaa in xafiiska dambi baaristana lagu soo celinayo maba sheegeen intaan rugtii booliska ka bixin baa kabtan faytaan loo sheegay Raxmo meesha laga helo waaba xafiiska ku xiga markaan xafiiska dambi baarista nimid waxaan dhex taagan Raxmo Liibaan oo jeebaysan indhaha markaan ku dhuftay waxaan xaqiiqsaday inay tahay taan boorsada ka dafay 3 su'aalood buu dhamme faytaan i weydiiyey gabadhan weligaa ma aragtay haa baan ku jawaabay su'aashii labaad waxay ahayd see u taqaan
maalintan boorsada kala cararayay baan arkay baan ku idhi su'aashii saddexaad uu i weydiiyo waxay ahayd boorsadaad ka qaadatay tan ma ahayd haa baan ku jawaabay wuxuu amray in rugtii booliska la igu cesho sidii baana la yeelay